Waa kuma safiirka cusub ee uu Maraykanka u soo magacaabay Soomaaliya? Madaxweynaha Maraykanka, Joe Biden ayaa Richard Riley u soo magacaabay safiirka cusub ee Washington u fadhin doona magaalada Muqdisho, sida lagu sheegay war qoraal ah oo ka soo baxay Aqalka Cad. Safiirkan ayaa xilka si rasmi ah ula wareegi doona marka uu waraaqaha aqoonsiga ka guddoomo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, inkastoo aan la sheegin xilliga uu shaqadan si buuxda ugu wareegi doono. Haddaba waa kuma? Richard Riley wuxuu haatan ka shaqeeyaa safaaradda Maraykanka ee Kanada, halkaas oo uu ka yahay la taliyaha arrimaha dhaqaalaha ee safiirka. Horey wuxuu u soo noqday qunsulka guud ee qunsuliyadda Maraykanka uu ku leeyahay magaalada Peshawar ee waddanka Bakistan. Wuxuu sidoo kale xilal sare ka soo qabtay safaaradaha Maraykanka uu ku leeyahay dalal dhowr ah. Mar wuxuu safaaradda Maraykanka ee Norway ka ahaa kusimaha safiirka iyo ku-xigeenka arrimaha howlgalka ee safaaradda Oslo. Richard Riley waxa uu safaaradda Maraykanka ee ku taalla magaalada Kabul ee dalka Afghanistan ka soo qabtay xilka ku-xigeenka howlgalka ee safaaradda. Waa nin si weyn uga dhex muuqday arrimaha diblomaasiyadda Maraykanka. Waxaa sidoo kale xilalkii uu soo qabtay ku-xigeenka guud ee arrimaha howlgalka safaaradda Maraykanka ee magaalada Sanca ee waddanka Yemen. Wuxuu ka mid ahaa saraakiil hogaaminaysay koox gaar ah oo Maraykanka u qaabilsanayd dib u dhiska gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan. Wuxuu soo noqday agaasime ku-xigeenkii hore ee wasaaradda arrimaha dibadda u qaabilsan arrimaha Masar iyo dhulka Shaam. Halka aad warkaasi kala socotaan waa Mosilon Media. Fadlan daawada like, share iyo comment nagu caawi si aan xawaare u jarno.